السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارت الدونك إغلا سعودتو هوذا آن فرينك كنا هاي وإذن سلامي بعد سلام جمعة ونعكسن ملكستو الدونك أكل جوكتان ما أنت الجمعة ينوتهاي وحا إسلا سعونا معان أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة ونعكسن يا صومالية إن شاء الله خير بإذن الله كريم. عفي عافماد إلهي إذن كيس. لو آمين. أبشرتي إجابة إلهي إذن كيس. لو آمين. سي خير كتير إلهي إذن كيس. لو آمين. وحواي. قفك بين هذاك. ما شاء الله أي سومال إنه رمودا وتمحيا لقبلها ويلش سناب شات كي كجروا وانسا ضدك الدم حيدهن أيه وإن وحيابها فائدة لما دام سناب شات كوحل سوق لي وكبحو إن أين وانسو أو يوتيوب كل سوق لي أو دنيا بدنا يكفائدة ستو سيدا هوري إنك وشاقي نصر السم مستقبل كتي في أي نقطة دونتا أو دنيا رد اللي كدير قليو إن متكي هور مرة midkii rabay inuu dadka musaacideeyo midka rabay maxay noqon doontaa meel motivation lagu kala qaato macna la isku dhiirigeliyo qofka kale walaalkiis wax uu ka faa'iido lagugu soo bandhigo hadaa horumar gaartid insha Allah waa inaan isgarabsanaa is dhiirigelinaa si midka kale uu horumar u gaaro Soomaay marka la is dhiirigeliyo marka la istaageero ay horumarka wanaagsan imaada laakiin hadaan la istaageerin oo cadow la isku noqdo oo la isxaasido horumar sida loo gaaro waa adkaanaysa dalkeena uu noo baahan yahay dadkeena way noo baahan yihiin sida arkaysiin wadankii abaaro badan ayaa ka dhacay abaartu waxa saacideeyeen dhalinyaradii haddii laakiin anaga aan istaageerin oo anaga aan isku xaasino qof horumar gaaraya ma lahan wadankiina dhibaatada way ku soo jiraya dhibta waxa looga baxaa marka dadka ay heer gaaraan Soomaaliya iyo qofkii dadaalo hadaa aragtid qof dadaalay oo walaalka ama walaasha dhiirigeli si adina aad horumar u gaartid insha Allah waligay waxaan jeclaa in dhalinyarada aan dhiirigeliyo in qof kasto Soomaali aan dhiirigeliyo in aan hadalkayga dadka dhan aan deeqsiyo midka deeqi kara ama midka gaari kara muhiimadda ma ahan in dadka dhan ay ku dhageystaan halkii ku dhageysta ayaa dadka kale si gaarsiinayo wax kasto wanaag ahna wuxuu ka yimaadaa markii afka laga sheego markii la hadlo umbu wanaag imaada sama hadii aa aamustid oo wanaag la aamustid horumar ma imaanayo wax imaanayo ma lahan ayaantan YouTube ka mashquulay howlo iyo arrimo yaryar ee galgalay marka laakiin still qalbigayga uu ku jira dhalinyaro badan iyo dad badan ayaa waxay dhahayeen Nasro barnaamijkayga dhiirigelinta ayaantan waa ka fadhiistay moolash markaas kugu imaano ma ahan inaan ka fadhiistay arrin yar oo aan ku mashquulay iyo keentay laakiin qalbigayga markasta way ku taagan tahay in barnaamijka aan wadi jiray inaan halka aan ka sii wado aan is dhiirigelino si midka kale uu horumar u gaaro aniga Nasr Isom ahaan marka social media ha soo galay Facebook ayaa ka bilaabay alxamdulillah dadkaygi daawanay dhageysanay aad ay uga heleen hadaa maalin ay waayaan way la soo xariiraan waxbay soo weydiiyaan inkastoo Snapchat-ka u badanahay Snapchat-ka waxa la soo duuba hore laga soo gelinaa laakiin YouTube-ka waqti badan ayuu rabaa laakiin insha Allah mustaqbalka dhow programyo badan wadaado dhalinyaro dadka waaweyn dhan isku imaanayaan barnaamijyo badan oo uga hadli doono ayaan soo gelin doonaa oo waxtar u leh bulshada dhan sidoo kale marka anaga is dhiirigelino oo istaageerno hadii qof IT-ga ku fiican oo YouTube wax soo geliyo qof cunto ku fiican oo YouTube soo geliyo qof mowduuc wanaagsan ka hadlayo oo YouTube ka soo geliyo dad wax bartay waxbarashada ma ahan iskuulaad waxbarashada waxay noqon kartaa marka qof walaalka wax wanaagsan uu sheegay aad dhageysatid aad ka faa'iideysatid ayeeyo oo wax wanaagsan sheegaysa marka aad dhageysatid aad ka faa'iideysatid waxbarasho waa aqoon aad gararsatay marka hal is support gareeyo hal is dhiirigeliyo qof walaalka oo wax wanaagsan sameeyna hadaa aragtid ku dhiirigeli bulshada u soo bandhig si macnaheedu marka dadka qaar waxa jira kaamirada ka baqa ama maxay ahayd waxay soo bandhigi lahaayeen hore loo bahdilaa ma la dhaw waxba ma sameyn kartid oo ka niyad marka dadkaasna waxaan dhihi lahaa qof kasto oo wax urin kara ama qof kasto oo wax wanaagsan qalbigiisa ku jira inuu soo bandhigo si anaga dhan uga faa'iideysano qof walba wax buu yaqaanaa hada YouTube-ka kale sida gaalada kale wax kasta soo gelinayaan koobka haduu dhinac kaaga hala waxa jecesha haduu ka halaabo ka soo qaad YouTube-ka daagalisid waxba ka baranay laakiin Soomaali markii la Google garay waxba ma arkaysid marka waxa loo baahan yahay qof kasto wax yaqaan inuu bulshadiisa u soo bandhigo si looga faa'iideysto hadii aad Quraan ku fiican tahay hadii maxay ahayd aad dharka toolada ku fiican tahay hadii sharaxaad aad ku fiican tahay
haddii sida for example oo computerka ciladoobo oo kale sida loo hagaajiyo haddii exercise-ka ku fiican tahay haddaa cuntada healthiga ku fiican tahay waxyaabo badan ayaa jiro oo qofka bini'aadanka uu bulshadiisa usoo bandhigi karo si looga faa'iidaysto marka si aan ula tartanno bulshooyinka kale ee caalamka bulsho kasta way horumartay waxayna ku horumartay dhalinyarada iyo ummadda marka ummadeena waa inaan isdhiirigelinaa waa inaan annaga istaageernaa waa inaan issabood gareynaa waa inaan isku faraxsanaanaa waa in haddii xitaa qof soomaali aada aqoonin aa aragtid horumar gaari meelaha aa ku aragtid inaad ku faraxdaa sheer garaysaa sabood garaysaa si qofkaaseyta uu asagana kor uu iskugu soo qaado marka ayay adiga maxaa ku darsan lahayd dhalinyarada maxaa kula talin lahayd aniga ها هذا أبدا ما يوحنا ليه لابد marka hadda maxaan ugula talin lahayd anaga هذا waxaan idin kula talin lahaa is saacideeya sida la isku saacideeya saacideeya wax isla qabta kii qof si ah hadda aragtaan waaniya صح hadduu waxba haysanin wax ku tara garad saas fiican asagana wuu fiicnaanaya insha Allah bidnillah kariim horumarka qofku muxuu ku gaari karaa marka dadaal lagu gaaraa sidoo qofku dadaali karaa dadaal waxa lagu dadaali karaa qofku wuxuu jecel inuu ka miro dhalo jeceshay haddaad suubiso oo Allahna kula qabto ilaahina abradid in Allah kula qabtaa muhiima markii Allah oo wax kula qabto wax ka soo ku suurtoobaya ina qalbigaaga wada nadiif yahay qalbigaaga nadiif qofka markuu qalbigiisa nadiif yahay waxa uu jecel yahay uu niyad u haayo uu ka miro dhalanaya waxa laga yaabaa marka ugu horeysa inaa caqabad kala kulantid marka labaad inaa caqabad kala kulantid marka saddexaad inaa ku guuleysatid laakiin markay caqabad kula kulanto ama aad wax yar kugu adkaadaan xanaaqin has dhibsanin wax kasta oo la bilaabo dhibaatadeeda ay leedahay wax kasta oo la qabanayana easy maahan laakiin waxay u baahan tahay in waqti la geliyo dadaalo wixii easy noqdo waxa waaye beenbeena ku imaadaan laakiin wixii markay adeeg kugu soo maraan hadhow gadaalay kaaga qafiifayaan marka hal sabood gareeyo insha Allah maanta anaga waxaan rabnaa inaan idin dhahno jimco wanaagsan waxyaabo yar yar oo dhiirigelin kaliya inaan ka hadlo insha Allah share gareena Nasrisom hadaa ka heshay waxyaabaha aan soo gelinayno insha Allah cuntadii waa soo gelin doonaa programyo badan ayaa soo socda haduu Ilaahay yiraahdo hal is dhiirigeliyo wuxuu noqon doonaa YouTube-ka Soomaali isku keeno YouTube-ka waxyaabaha horumarka laga barto insha Allah wax kasto wanaag ah ani kali kama hadli dooni bulsho kasto Soomaali ayaa ka hadli doonto Nasri waa Nasri Ilaahay keena Somna waa Soomaali waa guriga Soomaalida marka hadii fadlan ay nagu cusub tahay soo dhawo asxaabtaada la share garee familkaaga la share garee inta aad taqaan la share garee si waxyaabo badan aad uga faa'iideysatid insha Allah waxaan idinkaga tagi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo in aad isku duubnaatiin subscribe like share si Nasrisom dadka kale uga faa'iideystaan marka ayayo asxaabteeda maxaa leedahay khayr iyo abshir iyo ijaaba iyo rabbi iyo sidii room bidnillah kariim khayr iyo barako السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلانتينا وا Nasrisom